gudoomiye xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro markii ugu horeysay waxa ka hadlay sababta uu raaci waayey safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku joogo dalka Imaaraadka Carabta. waxa uu sheegay laba arrimood awgood inuu raaci waayey isagoo ka hadlaya waraysi khaas ah oo siiyay telefishinka Home Cable TV ayaa waxa uu ku yiri madaxweynuhu wuxuu yeeray labada xisbi waxaanu ka codsaday inay u raacaan safarkiisaas oo sida uu sheegay lagu marti qaaday si degdeg ah dalka Imaaraadka. madaxweynuhu labada xisbi wuxuu ka codsaday inay raacaan hase yeeshee ma ka cudur daartay laba sababood awgood. hore waxa weeye kulamadii hore ka dhacay Imaaraadka qayb kama ahayn xisbiguna qayb kama ahayn. taasi waa sababta labaadna waxay ahayd waqtigu ii sheegay madaxweynuhu iyo waqtigu dhoofayay aad isugu dhawaa saacado yar u dhaxeeyeen waan ii suurta gelin inaan xisbigayga la tashado. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waraysiga khaaska maanta uu siiyay telefishinka Home Cable TV sidoo kale waxa uu jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya ku aadan arrimaha maalgelinta Soomaaliland iyo qadiyadda Soomaaliland isagoo ka hadlaya waxa uu yiri xisbigu mowqif cad buu ka taagan yahay qarannimada Somaliland iyo midnimada shacbigeeda iyo mid ahaanshaha dhulkeeda intaba si buuxda ayuu taageersan yahay. waxaan u taageersan yahay awoodda uu dastuurku siiyay xukuumadda inay heshiis geli karto ama waddan kale la geli karto ama shirkadaba la geli karto. waxa kaloo aanu u sheegaynaa qolada Soomaaliya in Somaliland ay tahay qaran madax bannaan oo qarannimadiisana qaatay 1960kii 26kii Juun oo qaran buuxa ahaa hase yeeshee qarannimadiisii u sadqeeyay midnimada Soomaaliya iyo in la helo shan Soomaaliyeed. Somaliland cidina qori caaradii kuma gelin xamar maantana suurtagal maaha in cidi khasab ku geyso ama khasab Soomaaliya kaga dhigto. xukuumadda heshiisyada gasho iyo tallaabooyinka qaado xisbi mucaarad aan nahay ray ka duwan ma qabi karnaa. Soomaaliya ka hadashay macnaheedu ma xalaaleynayo wixii midmadowga ay xukuumaddu leedahay. mowqifka halka uu iska taagay xisbigu cadeeyay in dadka loo soo bandhigo si daahfuran heshiisyada ay gashay xukuumaddu. gudoomiye xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro sidoo kale waxa uu ka hadlay oo xukuumadda Soomaaliland ugu digay in saldhigga military uu yahay khatar weyn oo Soomaaliland dhibaato u geysan karta. heshiisyadii ay gashay xukuumaddu ee ka mid ahaa saldhiggu berigii hore waxa la istiilaan yaa saxay haddana waxa leeyahay Muuse saxaya imise jeer ma horta la saxaya bahalka. waxaanu qabnaa guud ahaanba saldhigyo uma baahna Somaliland waxay u baahan tahay biyihii Imaaraadka ku ballan qaaday baa shacbigu u baahan yahay. waxaanu qabnaa saldhigyadaasi inay keeni karaan in dowladda kale oo gobolka ah ay colaadayna dhex marto oo Somaliland noqoto meel lagu tartamo oo dowladda shisheeye ay ku tartamaan ama waxa loo yaqaan af Ingiriisiga proxy war. waxaanu qabnaa mowqifkii xisbigu ka qaatay markii hore buu ka taagan yahay labada arrimoodba heshiiska dekedda iyo heshiiska saldhigaba mowqifkiisu uu cadda xisbiga kii buu ka taagan yahay. أحمد سبل بول هون كيبل تي في عزيمة درجسة.